waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalmaha isbarkan ee beeralayda iyo cunnada adduunka taas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayna ka soo qayb galeen wakiilo ka socday qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga ah dawlad goboleedyada dalka iyo beeralay Soomaaliyeed inta aysan munaasabadu bilaaban wasiiru dawlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna kusimaha wasiirka wasaaradda mudane Asad Cabdirasaaq iyo madaxda wasaaradda ayaa kormeeray bandhig ay ganacsatada yaryar ee dalagyada iyo cunnada ku dhex qabteen gudaha xarunta wasaaradda intaasi kadib waxaa toos u bilowday munaasabadan loogu dabaaldegayay maalmaha beeralayda iyo cunnada oo ku kala beegnaa 15 iyo 16 bishan Oktoobar ugu horeyn agaasimaha sugnaanta cuntada wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamuud Yaasiin Cartan ayaa waxa uu sheegay in maalinta looga gol leeyahay isxasuusinta sida loo dabargoyn karo macluusha halkan idinku marti qaadno xafladan oo ah xuska maalmaha isku sidkan ee maalinta beeralayda Soomaaliyeed iyo maalinta cuntada adduunka runtii maalmahan muhiimad gaar ah ay anaga ka wasaaradda beeraha inoo leeyihiin waa maalin aan ku xusno sidii aan u dhiirigelinayn wax soo saarka beeraha waa maalin loogu talagalay in la isku baraarujiyo la iskuna dhiirigeliyo sidii loo dabargoyn lahaa macluusha madaxa iskaashatada beeralayda Soomaaliyeed Maxamed Abiikar oo ku hadlayay afka beeralayda ayaa wasaaradda beeraha ka codsaday in ay garab istaagto iskaashatadan oo la aasaasay 1953 marka waxaan soo jeedin lahaa in wax qabadka wasaaradda hadda bilowday ay sii wado iskaashatana la ogaado inaysan ahayn howl hadda bilowday iskaashatada 1953 iskaashatada ugu horeysa ee janaal laga aasaasay waa cooperative agricole janaal laga aasaasay ilaa hadda socota iskaashada agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamuud Maxamed ayaa isna waxa uu tilmaamay in halkii dadka aan qoodin lahayn inaga nala qoodiyo haddii muxuu ahay yani annaga meesha ilaahay nooga abuuray adduunka fursadda uu na siiyey wabiyada iyo dhulka iyo wax barwaaqada waxay ahayd in aanu dadka qoodino ما أهين إن أنا جنا لقودي لكن واد دبعت يعني دحذينا كجرتا تاني إلهي إنه نجح عليان إلهي ويدي سنينا صوته هتاي واد دبعت تاجن intii ay socotay munaasabada waxaa lagu soo bandhigay bandhig dhaqameedyo ka turjumaya sida beeruhu ay muhiim ugu yihiin nolosheena kusimaha wasiirka ahna wasiiru dawlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya Asad Cabdirasaaq Maxamed ayaa sheegay in tacbashada beeraha Soomaaliya ay ku gadaamin yihiin caqabado badan loona baahan yahay in xal loo keeno saan ognahay beeraha Soomaaliyeed waxa ku gadaaman caqabado badan haday ahaan lahayd biyaha haday ahaan lahayd dhulka la tabcado dhamaan waxa weeyaan potentialka Soomaaliya dhinaca beeraha waa wax la inkiri kara maaha ilaa laga hadlo caqabadahaas oo laga gudbana Soomaaliya ma gaari karto food security caqabadahaas waxa koow ka ah arrimaha amniga oo hadda dardar ku socda waxa kale oo burburay kaabayaashii beeraha haday ahaan lahayd kanaaladii iyo haday ahaan lahayd xarumihii aqoon gabagabadii munaasabada waxaa la soo bandhigay doodo iyo falaqeyn la xiriira dib ugu noqoshada dadka ee tacbashada beeraha si loo helo dhaqaale ku taagan cagow la isku haleyn karo oo dalku u yeesho